وما صدقي ماشى أيام ترى لو إساك دعي دمه الرئيس ساكي باور ماشى لقمة نوعي أو أيامه بدي ماشى شيء كذا عيل لقمة نوعي بينهم عرض قوي رجعين وصور رأينا كان ماشي ودخل باكن دعي كدمنا صدق أني بيكتير. وقت ماشى سيد رسمي ودخل كان كذا عيل بلادي أنو تلمانتي. كارو أنت شوي. وقت سيد مركز رئيس أنا كوب بلعبتي بل ففاين نقصي بل مركز عدة ويرك السواق عضي سيدا ودخل كوب بلودي. وين نوقع يا ترى ربي يتكلمنا جنوا حتى لو أنه يسكت كون في شطرة سوق حد بالجار يكون صور رين. نيجي صدق نقرأ بطيء الدليل بدأ نوامك أفراد عندي أفراد عندي شراب واحد أصون. وقت هذا حالة مركز وربنا سوق جاري شيء يعني جيران الجرمديو لو أدينا عياليان أو halkaas soo gaaraya maxaa nooga biri kartaa arintaas walahi waa midaas dhinaca ka warqabayo wax gurmaday wax dagaalay dadka ma jiro dadku waa horay nabad qaateen nabadiina wali ku maqayeen baawur iyo ciidan iyo ordu diyaarsan midna ma jiro waa weeyo dadkaasi marka dad nabad kaga fadhiyay ahaayeen sidaas loo jirin dadkooda loo leeyin jirin waxa keenaa waxa weeyo nabad baa dadka beeraha oo wada dagaxadaas la dhaxdigay alla runba loo qaatay nabadaas lagu fadhiyay nabadiina waxaana ka soo hoos baxay oo maalin walba dawlad iyo baawur wixii dalil la mamnuucay wadanka laga mamnuucay oo qolo walba la yiri hal gaari meesha lagu arki karo ila aan beeraha sacadka waa mamnuucay si loo mamnuucay oo mamnuucay hal gaari ma tirin niman gaarina habeen maday baawurtu way iska socotay maalin hadda sida la qabtay waa lagu cadeeyay baawurtooda habeentii marka dadkii hore dhintay waa go'aan lagu gaaray oo nimankaas ku gaareen inay ugu aaraan maalin walba inay nin dilaan ama laba dilaan halkaas ay u joogtaa waa gartaa adinka hadda odayaashiina wax ma jiraan waana wadaan oo xiisadaas lagu qaboojinayo ama arintaas looga hortagayo walaa awalba warba iska socday hadda nimankaan anagu annaga colaada joojina maanayo weligood baxbad ma joojin maalintii la heshiiyey maanta ka dhexle 10 nin bay qabaan oo ninba mar ay jireen iyo xoolo iyo wax ay soo samayn lama arko annagu waxa weeye waxay joojiyeen lama arkay annaga waxa joojinay waa meel wax ka dhaceen weeye kullayna dad laga waayay meesha waxa dhici doonana ilaahayna ku cilmi leh laakiin sida hadda anagu adigu i weydiisay ama aad ogtaada annaga wax dagaal oo noo qorshaysan oo dadka u qorshaysan ma jiro dadka nabadda dalka qaateen sidii bay ku maqan yihiin maamul goboleedka galmudug ilaa haatan ma jiraan wax war uu ka soo saaray arintaasi ama in la soo xiriiray maamul ahaan oo arintaasi lagu dajinayo ma jiro wax looga yimid ma jiro heshiis baa jira hadda ka hor dhowr jeer ayaa dagaalkan meesha ka dhacay heshiisaa la kala dhex dhigay muddo gaalkay la fadhiyay arinta dadkii gacanta la isku saaray baawurta in meesha laga qaado oo maxaan ku yiraahdaa dadkii la kala qaado oo rabshadii meesha ka dhacday la joojiyo lagu heshiiyay marka maxaa soo celiyay hadda xiisadan hadda ka taagantaa roobay nabadda markii la dhex dhigay hadda waxa la weydiinayaa dadkiyada oo labada beelood ku dhex jiray oo labada dhinaca ayaa la weydiinayaa bal wax ayaga xaggooda ka joogsoobay waxaan ku sheegayaa waagii nabadda lagu dhawaaqay oo gudiyadu soo galeen arrinta oo dagaalka la joojiyey iyo maanta inta ka dhexla ayaa waxba kama bedelin qorshahoodii istiraatiijiyadooda dagaal hal xabba kama bedelin sidii bay u wadaan oolahay dilayaan dadkay dilayaan riix bay wadaan waxa weeye shaqadoodu waa taagan tahay hal daqiiqo oo ka mid ah wax nabada maysa qaadan wax uu tawasawaaho aan ku dile dawow wax la yidhaahdo bay wadeen waxaana isleenahay waxaani wax oo macaan oday dhaqan iyo qabiilba isku ogyahay inuu yahay waxa u sababa wax isbedelay ma jiraan baawur odayaal iyo nabadoonno iyo saraakiin la leeyahay waxay ka yihiin mas-uul
baqanayn oo dadka lagu leynayo waxay ku tusaysaa wixii aan isku sheegnay inaysan dhinacooda ka dhaqangelin waxna ka suurtoobin. waa gartay baaqa ugu dambeeya nabadoone bal waxay u jeedinaysid qiimaheeda iyo micnaha ay dadka u leedahay waa la wada yaqaanaa laakiin dadku faraha laaban maayaan laga dayn waayo dhibaatada dadku iska seexan maayaan waa dareemi kartaayo bahalka baallada ugu yaran kulli la dhaco waa iska dayn weydo waa kaasoo horjeesanaya dadku waxa weeye qorsho dagaal kama lahayn laakiin danta ku kalifaysa